tartamaha ku xiga cabdiqani maxamed cabdilaahi حتري الله والله وان كاقجلي سيدي محترضو cabdiqani iska war والله الحمد لله gobolkeed ka socoto waxaan ka socdaa gobolka Maroodi Jeex maxaad soo bandhig waxaan soo bandhigayaa majaajilo kaliga keligay miyaad ku eegi doona soo ka istaaga xagga waa mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta majaajiladani waxay ku saabsan tahay qaadka iyo tahriibkan aafinan tahriibka dhibaatooyin ku leeyahay marka sheeko ana iska sameeyay sheekay ku dhacday ayaa waxa jirtay maalin maalmaha kamid ah ayaan suuqa soo maray suuqan soo galayo suuqu boor badana siigiyo waa dhaxan islaaqiya habliina malaaway ka seexdeen oo safurtay nacayaan xagaan uu kaana deeto markaasan qaadna ma hayo dadkii qaadka hay maqaaxiya iska wada tagayaan maqaasan ilaahay iska baryaana ila bilaa qaad baano waan jabaneeyo wad yaabaysaa maqaasan yidhi allah yuqaad badan tar sigaarkuna budbuudhaayo kookana dhinac yaallo allahayow isii han murqaame han murqaame allahayow isii intaa markaan idhi baan xaafaddii iska tegey markaan xaafaddii taga arkay aabbahayo lacagta leedhka bartan dhigaya cawadayda waan qaatay lacagtii maqaaxi baan ku jarmaaday show mid jaarka ahayd oo weligeed bay jeclayd keligeed ay dhex joogto maqaaxidii baan soo gaadhay anoo qaad sitaa asalaamu calaykum markaasay tiri alla waa yarkii jaarka maantun buu geesi joogaa soo fadhiista jamaalow alla waa janagelihii hoogayo jabay maxaad mar iga soo sheego inaad imanayso hashtarigiina mee markaasaan ku idhi oo caadi walaale halkan iisoo goglo halkii baan fadhiistay jimcuhu deg deg badanaa bismillaahi araxmaani araxiim waagii baa ii baryey waagii markuu baryaan muraayar saa usoo qaato saasaan iskugu eegay show baangada iga soo boodayba ilow saamileel baan haaye saa markaan isu eegay ayuu maarkon wid baangada iga soo booday qaadkii hadhaan horta tuuray bala ayaa ku cuntee halkii baan hees isagana ugu tiriyey qaadkii aan tuuray ilaa aabbayaan lacag ka soo xado waan yaaban oho xaafaddiina ma tegi karo waa layga doodoonayaaye markaasaan idhi sow adiga maaha habeen waxaan la dhaxay aabbahay u dhacay maqaaxida la tegey markaasaan qaadkii tuuro anigoo suuqa maraya isla hadlaya deeto habeennimadiina waxaa ii yimi dibaabka la sheego shabahalka waxubaa sida markii aan suuqa maalintii dabaanoo maraya ayuu mid magafi iga hor yimi anuu isla hadlayo xaggaad ka keentaa waxo islaho ayuu igu waryahay tahriibisa gaadhaan kuu haya ilaa libiya bilaa lacag markaasaan saa weego isagana waxaan ku idhi waryahay tahriib iyo waxaa mar rabaan igu yidhi dhaafi wallaahi bilaahi yurub baa tegaysaa xafaayadda lagu xidhaya masaasadda markaasaan ku idhi markii hore inaan tahriibaan rabo idda lacagtii cuntee dhammaan dadka doonida saaran salaan iga geeya badan yaa tahriibayaasha yaa magafayaasha yaa mukhallisiinta assalaam calaykum assalaam calaykum intaa markaan idhi ayaay nooc waliba way noogu soo geli daadkaan la yaabanaayeen cabdiqani dad badan baad kasbatay guddidu way qosleen xad iyagaaba dalbaday in la joojiyay intaa in ka badan haddii aad sii qosli lahaayeen qaar baa dibaddaba u bixi dee macal ayaantii dhawe tv-ga laga soo daayey hablo badan oo jaarkaabay daawan laha alla inanka hadda la sheekaysan lahaa maasan tahay
ruun baa xoog u qoslaysa imika waxaa laga yaabaa inuu qosalkeeda haddayna maqli lahayn kala googoos leeyahay soo dhow ruun allaha kaa farxiyo saacadihii dambe ahoo la iska yar wada daalan yahay baad si fiican nooga qoslisay haddaadba saacaddu xitaa intaa ka soo horrayn lahayd qaar baylkuu ka daadan lahayn aad baad u fiican tahay majaajilista actar baa la dhahaa actar heesaaga waxaa ka qaalisan qofka actarkaa ee dadka ka qoslin kara ayaa ka qaalisan actar waa tahay maxaan idhaahdaa abwaankaan ku horraysiyo gooni buu u qoslay isagu yahay suugaantu laba faa'iido ugu labayna ereyga lagu maamaayo ereyga lagu qoslo weeye ereyga xalee dhaxal reebka la yidhahde lagu maamaaho ee marka dambe la yidhahdo ina cabdillah xasan wuxuu yidhi wax dulliya niman deelka iyo daalka kala soo oli waa maamaah iyo ereyga lagu qoslay dadka farxad geliya ninkan wuxuu la yimi ereygii lagu qoslayo farxad geliyay dadka waa dhanta waa tahay waya haye waxaan yani ma halkan waxaa joogay moogta qof yidhi maama anigu keligii waxa ma jiri karo inankana waynu aragnaa siduu xojilay keligii waa kaa beerkiina caddaaday markaa runtii waa isku filan oo ninkan waa isku filan waa nin u dhashay hibada waa nin hibada u dhashay hibada jirista uu u dhashay sonkor iyo liinba waad iskugu dartay caabi waa xaqiiq waa isku filan waa sidaa uu sheegay cabdillahi waayo dee sidaynu arkayna ninkii ka horreeyeyba keligiiba ahaa wuxuu yidhi waxaan u baahnaa in layla caawiyo waxa weyn waxana waa mawhibo ilaahay baa qofka ku abuura soman garan halkan uu ku dul samaystay baa laga yaabaa iminka intaa ninkan inoo samaynayey marka waxa weeyaan waxaan leenahay sii kororso mawhibadaada aad baad weliba ugu wanaagsan tahay inaad dadka ka qosliso waxaan ku rajaynayaa mustaqbal fiican insha allah bismillahi geeljira haye waxaa ka muuqatay sidaynu maalintii horeba u xullay waa nin maskaxdiisa waxa ku jira iyo dadka isku xidhi kara haddii aanay sheeko ahayn iyo hadday sheeko qiimala tahay labadaba ka samayn karaa wax dadka ku xidhmaanoo uu kaga qosli karo wuxuu intaa dheer yahay matalaadda uu wixii matelayo uu samaynayey actingkii waxaa weliba intaa usii dheer heesaa uu ku qaadayo aad iyo aad mustaqbal wanaagsan baan ku rajaynaa aad baad u mahadsantay weliba waxaa intaa usii dheer isku filan baa loo bixiyay soo dhow isku filan aad baad u mahadsan tahay guul baan ku rajaynaa